Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Isku soo noqosho wanaagsan soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa waxa loo yaqaan monkeypox virus oo ah virus kale oo isagana ka dilaacay Afrika iyo guud ahaan dunida. Viruskani ma ahan virus cusub oo mid hore u jiri jiray, waxa uuna saameyn xooggan ku lahaa wadamada dhaca bartamaha iyo galbeedka Afrika. Markiisii ugu horeysay ee lagu arko meel ka baxsan Afrikana waxay ahayd 2003 markaasi oo lagu arkay wadanka Mareykanka. Cudurka uu sababo viruskani ma ahan mid fara ka bax noqday weligeed amaba saameyn xooggan yeeshay ama waxa loo yaqaan outbreak, balse markii ugu badnayd waxay ahayd 2017 markaasi oo 178 keys laga helo wadanka Nigeria ee Afrika dhaca. Haddaba maxay yihiin calaamadaha uu qofku isku arki karo haddii uu asiibo viruska amaba jeermis dhaliyaha monkeypox virus ee keena cudurkan shabaha cudurka Soomaalida ee u taqaan busbuska balse aanan ahayn. Calaamadaha ugu horeeya ee qofku isku arki karo waa dhabar xanuun iyo qandho badan iyo murqaha oo qofka xanuuna. Balse markii qandhadaasi ay yaraato ayaa qofku waxa ka soo baxo nabro badan oo inta ugu badan ka soo baxa amaba ka bilowda wajiga kadibna jirka intiisa kale u daadago. Nabruhu waxa ay si xooggan uga soo baxaan intaas kadib gacmaha iyo lugaha. Nabrahani oo ah nabro biyo wato ayaa markii ay baaba'ayaan waxay sameeyaan waxa loo yaqaan scar haddii aysan raysan. Sida caadiga cudurkani ma u baahna daaweyn gooniya iyo la tacaalid kale, qofku waxa uu ka bogsan karaa si dhib yar muddo isbuucyo ah, inkastoo nabruhu ay yihiin kuwo aad u xanuun badan. Haddaba maxay yihiin waxyaalaha laga ogyahay cudurkan iyo siyaalaha uu faafo? Cudurka uu keeno jeermis dhaliyahan monkeypox viruska loo yaqaano waxa uu ka yimaadaa xayawaanada kale ee aan aadanaha ahayn, waxaana loo yaqaanaa zoonotic diseases ama cudurrada xayawaanada ka yimaada. Sidaas daraadeed haddii qofku la yeesho waxa loo yaqaan close contact ama xiriir dhow xayawaanada ay ka mid yihiin eeyaha, dooliyada, bakaylaha iyo waxyaalaha la midka ah waa uu la kulmi karaa cudurkan. Sidoo kale qof cudurkaasi qabo haddii qofku uu la yeesho asigana xiriir dhow waa uu qaadi karaa, maadaama cudurkan lagu kala qaadi karo istaabashada jirka. Haddii adiga aad leedahay meel dilaacsan amaba nabarka qofkaasi uu leeyahay cudurka qabo uu ku gaaro waad qaadi kartaa. balse cudurkan ma ahan cudur contagious ama si degdeg ah oo dhaqso ah u gudba oo khatar ah, balse culimada caafimaadku waxa ay wadaan baaritaano la xiriira isbedelada ku yimid viruskan iyo habgudbitaankiisa. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay inuu gaaro wadamo ka baxsan Afrika oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Mareykanka iyo Canada. Waxaana la soo sheegayaa cases badan.